السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري أصحاب قالقة ومركلي مقال كلا عصبي يعني ولاش السوداء سلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأصحاب قالقة معلمها أنت طبعا كدم اللي قلت شرد يسكر على النقد أنا نديرك جنبيا لجيابا لكن دي جانا الكيون الدميني فيديو يدي هرد عوضة أو فيديو مركز سوق اليوم يسكر باني ستون كبروا يسكوي يقولون ما تمالن كلا بد بام كوشرناي إن شاء الله. محوها فيديو قال لايك تيسكروا قاعدة أو شير قري وإن شاء الله دي جانا الكسيديني hay inoogu sii socdo bishan barakaysan ee Ramadaan waxa la inaga doonayaa horta inaynu aad u dadaalno inkastoo mar kasta laga rabo qofka muslimka inuu toosnaado u dadaalo laakiin khaasatan bisha Ramadaan khaasatan tobankan dambe hadda aynu ku guda jirno dee waxa la iska doonayaa in aad loo dadaalo qof kasta wuxuu isleeyahay laylatul qadriga yaa rabbi ilaahu ila kulmi ilaahay kuwa la kulmiyay naarta laga xoreeyaha inagu dare habeenkaasoo dee ah habeen lagu dhex qariyay tobanka dambe tobanka habeenba marka waxa wanaagsan qof daalo tobanka habeenba waxa wanaagsan iyo xataa maalmahoodaba inuu qofku dadaalo insha Allah biidnillah ilaahayna uu ka rajeeyo dee inuu la kulmo habeenkaas fadliga badan ilaahay uu yiri wuxuu ka khayr badan yahay 1000 bilood 82 sano u dhigmaa 82 sano adoo cibaadeysanay ay kaaga dhiganta haduu ilaahay habeenka kula kulmiyo oo dambigaagii hore dhan baa la dhaafay oo naarta laga xoreynaya oo ducadaada la aqbalaya ma sha Allah Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anni ducada ku ducayso buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam Aisha intee weydiisay ku tiri hadii aan la kulmo laylatul qadriga maxaan ku ducaystaa maxaan sameeyaa wuxuu waxa tiraahdaa Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anni sidaas waa kuwa culimadu mar walba taajidka inuu ugu duceeyaa Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anna marka dee wala badan yahay jamac baa leeyahay ma ogtaa kaliya marka tay fa'fu anni baad dhahaysaa marka dee qof walba marka dadkii shaqooyinka hayay qofka ay u suurtagelayso dhan shaqada waxay ka qaataan fasax si ay isaga soo cibaadaystaan tobankan bari aniguna inaan idin yarka gambiya laga yaabo toos tobankan bari idin kama maqnaanay laakiin hadda yara way weydaan ama channelkii kale kiisaska aad weydaan fiidiyoodii hore iska daawada biidnillah fiidiyooyada kalena like saar insha Allah channelkana sii wadade insha Allah aniguna idin kama maqnaanay waan imanayaa laba bari hal bari ba waan imanayaa insha Allah toos uma maqnaanay biidnillah intaasi kadib waan idin ducaynayaa aniga idinkaba dhamaanteen ilaahay laylatul qadriga hayna la kulmiyo intaasi kadib maanta waxaan nawada sheeko cajiibad oo Jazaa'ir ka dhacday 2003 Argosy team Argosy farta soo taaga muuqaalka like saara sheekadii way sheekadu Argosy balas qosol Argosy la istilay wax dhimanayo ma aha Argosy cajiiba weeyaan Argosy iyo qosol intee iska soo gali karaan waa kuwana maanta ay soo galeen dee warana idin haya soo yaaca wadna rabbi sheekadan 2003 bedalkaas Jazaa'ir caasimada Jazaa'ir bay ka dhacday Jazaa'ir waxa ku noolaan jirtay gabadhan yara jaamacad bay ka soo baxday magaceedana waxa la yiraahdaa Safiya shaqadii waxbay yara weyday waxay go'aansatay marka inay ganacsi iska samaysato reerkooda waxay ku dhiirigeliyeen inay meelaha suuqa ka soo raadsato dukaan kadibna dukaanka loo qalabeeyo oo alaab ay iibiso waxay tiri waxaan rabaa inaan iibiyo gabdhuhu waxyaabaha ay isku qurxiyaan make-upka iyo waxyaalahaas roosooteeyinka iyo barfuunada yaryar iyo catarra iyo wax walba adigu gabdhaha la xidhiidho waxyaabaha yaryarka ee la isku qurxiyaa baan waxay tiri rabaa inaan iibiyo jijimaha iyo faraantiyada yararka qalinka iyo waxaas dukaan bay gabadhii soo halootay dukaankii marka dee waa in la hagaajiyo la rinjiyo la qurxiyo decoration adduun lagu sameeyo waxay darisiyeen marka gabadhan oo meeshan dukaanka ay ka kireysatay soo degi rabto waxa ag degan oo ay suuqa daris ku noqon doonaan nin iyada ka weyn marka ilaa da'da aabaheed oo kala jira 54 sano lagu sheegay da'diisa magaciisana la yiraahdo Bakhti baa la yiraahdaa Bakhti ala ninkaas aduu ogaan lahaa magaciisu wuxuu af Soomaali ku yimid iska Bakhti lahaaba magacyadii waa ka dhamaaday baan u maleynayaa Bakhti baa loo bixiyay maninka magaciisu Bakhti weeyaan laakiin waa nin wanaagsan gabadhan marka way cusub tahay qofku markuu ganacsiga ku cusub yahay haday noqoto sharaxaada meesha sida loo sharxayo iyo haday noqoto alaabaha la soo iibinayo iyo qaabka dhan markuu ku cusub yahay waxyaalo badan buu qorta la gala oo waxa laga yaabaa midalan lacag aynan muhiim ahayn in meesha la galiyo ama sharaxaadeeda ha noqoto ama waxyaalaha faraha badan la iska soo iibinayo ha noqoto qofku inuu ku kharash garoobo laakiin markuu cabaar meesha joogo si fiican ganacsiga uu dhax galo inuu fahmo waxaan oo dhanba inaan loo baahnayn oo macnaha lacag fara badan meeshan uu ka soo reebi karay midalan meel laga yaabo in $10,000 uu ku baxaysa hagaajinteeda qurxinteeda laga yaabo $20,000 in kaaga baxday ilaa wixii ku cusub tahay odaygan marka gabadhan mar walba uu waani jiray waxaan looma baahna waxaan iska daa gabadhaydii waxaan sidan iyo samee wuxuu yiri meeshan marka anigu 30 sano deganahay
soddon sano ganacsadahay buu ganacsiga ku dhex jira anoo yar oo dhalinyaro ah sidaas markaan jaamacadda uga baxay adigoo kale baan wuxuu yiri intaan qof u shaqayn lahaa door biday anigu inaan shaqaysto dukaan weyn buu leeyahay marka odaygu dukaankiisa waxa lagu iibiyaa dharka dumarka wax alaala wixii dumarku dhar xidhaan iyo kabahooda lagu iibiyaa waa dukaan weyn oo dad baa kala shaqeeya wuxuu yiri marka dukaankaygu markii hore wuu yaraan jiray mar halkaasaan deganaa ugu dambeyn meeshan weyn buu kireystay wuu iibsaday lacag buu yeeshay dee ninkaas ganacsaday weyn 30 sano ganacsaday khibrad buu marka u leeyahay mar walba wuxuu dhihi jiray marka waxyaabo badan oo khibrad u leeyahay marba inaan ka caawiyo idin waxay dhihi jirtay adeer caawi khayr Allah ku siiyo gabadhii odayga halkaas iskala janqaadeen gabadha odayga way jeclayd si fiican bay u ixtiraami jirtay odaygu marka gabadha jacayl iyo shukaas iyo sheekii waxaas ma aha wuu jecel yahay sida gabadhiisii ahaan mar walba wuxuu dhadaa gabadhaydii iyaduna adeer bay dhihi jirtay laba qof oo yacni qofkan weynadiisa lagu ixtiraamayo isaguna gabadhan maadaama ka yar tahay suuqani waxan ay ku cusub tahay wuu caawinay gabadh marka waxay ogaatay marka meesha soo degtay ganacsigeedii waxay furatay odaygan bakhti la leeyahay inuu sidiisaba u wanaagsan yahay iyadoo kaliya inuu u wanaagsanin dariskoo dhan inuu u wanaagsan yahay qofkii xataa meel aadi haduu dhado dukaankayga iisiigad wuu u sii gadi qof hadii la yiraahdo deyn baa lagu leeyahay wuxuu dhihi qofka aynu lacag u ururino qofkana deyn lagu leeyahay aynu ka bixino qof haduu xanuunsado dadka suuqa jooga ah wuxuu dhihi qofkii hebel haba xanuunsan kaale aynu soo boqono isbitaalka aan ugu tagno dadka suuqa dariska kula hordhan way jecel yihiin isaguna wada jecel yahay wuu ka wada warqabaa subaxii markii ma dadka dhan wuu soo salaamay qofkii maqan bari oo kale soo fiirinay wuxuu shalay ku maqnaa qofku ilma ka xanuunsada qofku wax ku dhacay dadka dhan saas uga warhaya waaba odayro fariidaba magaciisa baa bakhtiyo moogi odaygii marka muddo ay gabadhii isqaaneen Safiya ahayd Safiya odaygii si fiican bay isu barteen way isfahmeen maalin buu wuxuu ku yiri marka waxaan rabaa way isla sheekaysan jireen maalin iyagoo isla sheekaysanayo wuxuu yiri waxa dib iga haystaa gabdhaha maqalhayaha dib iga haystaa wuxuu gabadh baa ila shaqayn jirtay muddo 10 sano ku dhawaada gabadhii wuxuu markaa liiga guursaday markii la guursaday marka ninkeedii baa wuxuu ku iska dhaaf shaqeeyo waxaas looma baahna guriga iska joog gabadhii wuxuu markaa gurigeedii iska joogtaa gabadhii baa wuxuu markaa bartay gabdhihii kale waan qaban lahayn mar walba adigu wuxuu keensadaa qof maqalhaya oo gabadha mar walba qofkan uu doonayo inuu kaashiirka u noqdo waa gabadh waaba inuu gabadh ahaado wuxuu yiri marka gabadh baan keenaa 2 bilood bay joogay mid kale 3 bilood mid kale 4 bilood gabadhii iga tagtay ee 10 sano ku dhawaad ila joogtay baan bartay gabdhihii kale oo dhan wuxuu waan qaban laahay mid si fiican wuxuu u xisaabinayay mid wuxuu yiri wax iska xadaysa mid wax isdaba marin sameynaysa aniga iyo waxa isku dhiban buu gabdhahan kaashiirka qof fiican oo amiin ah dad garanayso waxna soo bartay oo wax kala fahansan oo xisaabtii wax walba garanaya gabdhihii jaamacadda kula dhigan jiray iyo dugsi sare markaad ahayd iyo dariskiina bal gabadh fiican maad ii soo raadisid alla waxay tiri asiili baan garanayaa gabadh asiili la yiraahdo oo waxa jirta jaamacadda aan isla dhigan jirnay oo gabadh fiican oo si fiican aan wax isula barno hada ganacsigan waxaan suuqa markaan soo galay baan ka mashquulay suuq bay tiri ana asiili waana daris aad isugu dhow maaha laakiin dad saaxiibaha markay doonaan isbooqday ahayn isku jaamacad bayna ka soo baxeen iyadoo shaqo la'aan ah waxay tiri ugu dambeysay gabadhaas hadii la soo helo qof kale uma baahnidba gabadhii Safiya marka saaxiibadeeda asiili bay raadisay waxay soo ogaatay saaxiibadeeda inay bilaa shaqo tahay oo ilaa hadda ayna shaqaynin kabacdina waxay tiri marka waxaan ku hayaa shaqo maqal lahaynayo waxay tiri guriga ku dhax aajisay u fadhiyay gabadhan la yiraahdo asiili marka aabaheed caruur kale iyo reer kale lahaa hooyadeed mar dambe isagoo oday weyn guursaday iyadoo asiili oo kaliya markay isu dhaleen muddo asiilidu macnaha ilmo 10 jir meelahaas ay iskuul dhigta oo aabihii geeriyooday hooyadii nin kale ma guursan gabadheedan asiili bay soo korsatay odayga marka dawladdu u shaqayn jiray mushaharkiisii hawlgabka bay reerkani qaataan waa asiili iyo hooyadeed guriga ay degan yihiin iyo ka iskale bas gurigooda iska joogan gabadh shaqay raadisay way weydii kadibna aad ba shaqo uma sii raadinin waxay tirsan guriga u fadhiyay ee markaan meel aadayba hooyaday aan idhaahdo asxaabtaydan raacay meel baan soo wareegay ikaxay annaga kula soo wareegaysay ilahayd marna ilahayd wareeg badnida guriga joog ma shaqaynaysid maxaad la baxaysaa maxaad la wareegaysaa waxay tir xataa aniga hooya iska rahnayba san soo hortaagnayn bilaash hada hadii lagu shaqaynayo waxay tir waan rabaa shaqadaas mar uun bal horta waxay tir gurigan aan ku dhaxaajisay inaan ka baxaan rabaa may waxay tir nin waxaan ku geenay aan darisnahay oo raado bakhti oo dukaan weyn iskale kaashiir badan noqonaysa haddaad isfahantaan odayga waxay tir waad isfahmaysaan ba anaaba hubo inaad isfahmaysaan sababtoo waa qof fiican dadka magaalada oo dhan suuqa dhinacan uu ka degan yahay oo dhan waa laga jecel yahay amiirkooda weeyaan waa qofka ugu aaminsan ee ugu wanaagsan waad isfahmaysaan ana daris baan nahay gabadhii iyadoo wada asiili ahayd baa loo keenay odaygii bakhti ahaa asiili bakhti way isbarteen asiili dukaankiiba sidii kaga shaqo bilowday gabadh fiican oo shaqadeeda qabsanaysa oo aaminadoo la aaminay bay noqotay mushahar fiican buu odaygii siin jiray
odaygii gabadhii way sheekaysteen gabadhii marka iyo odaygii waxay ka sheekaysteen afaarahooda iyo qoysaskooda iyo reerahooda si fiican bay u sheekaysteen way isdhex galeen odaygu wuxuu yiri marka gabadh baan isqabnaa qaraabaan nahay ciyaal bay isu dhaleen dee badana waaweyn qaar jaamacado dhigtay qaar iskuulo dhigtaba leh wuxuu yiri marka bari horaan isku dhacday 10 sano ka dhawaad ismaanaan furin guurkayo waa guur warqad uun ah laba guri baan ku kala noolnahay marka wuxuu yiri inaan isfurnana waan ka xishoonayaa carruurteeda maadaama waaweyn carruurta dartood baan iskaga daayaa أنا يد مرك واحد حريري واحد وناجي واحد خير نجا مدحي أنا جورك ويجا خسارة قبلها في عنا هذا كلا هدان أركلا أضيق السدو قبل يقولها واد في عن تاي قبل في عن باتاي قبل إنه يورنت واحد أنا أبهي أنا يربون انتي عرور كلو دلو إيجوا وين هو ذي واحد كلام ما يدلين دحالك مركي لقيبي أبوه مركو انتي عنوكتن يرد حل باكوسو هجاجي جوري باكوسو هجاجي عنوكتن أسيلي يدو تاي قبل نسيلي يدو يرو مكان عنوجا gurigii ku soo hagaagay hooyadeed way iibisay carruurta ka weyn armay kaga noqdaan waxba istiri gurigii way gaday lacag badan oo $20,000 ah iyo wax $22,000 bay gabadha yarta u heshay marka dhaxal ahaan hooyadii akoon bay soo furtay gabadh yar magaceeda ku qortay bangigay ugu shubtay marka lacagteedii waxay tir halka ku tala markay gabadha yar weynaatay qaangaadho marka ay lacagteeda ha isticmaasho si una يعني عندنا أم جوري هذا أبو قبسانين أم العقد هذا اللوجا خسارين هو يدو العقد يدو سيد دي العقد جوري ويسوق قاضيون ميل بردكتر مركا أو أكون بيوجرتها قبلنا يرتا قبل ويوقتها مركا يدو طلع عقد بعد بيك بحثتها لكن العقد بدن بقبل يرتا أكون بيوجرتها وذيك بيوحل بوجه كيس مركا يدونا مباركو دنتي هبهيد ولا لك هو وين إنه دلي ولا الله سوادت في عن رحل كيس في عن بيوقف صدين حدود كيف وناكسن يهي reer fiican baan nahay aniga hooyadey si fiican baa waxay isu fahamsanahay oo saaxiib baan oo isjecelnahay oo marmar baan guriga markan saayid u joogan baan isku yar xanaaqnaayo waxay jeceshahay mar walba guriga in shaqo laga qabto ana shaqada guriga laga qabanaya necbay waxaas ma ka sheekaysan jireen isaguna mar walba wuxuu dhigi jiray iska bulaanayo inuu cimrigana xaaskaygii anigu isma fahmayno laba guri baan kala deganahay carruurta dartood baan inaan iskaga furo aanu diidanahay adoo odayga gabadhi waxa ku riwaabaan ku rabaa oo ku jecelahay laakiin waan khajilaya waan xishoonaya waan yaxya xayarmadii la yaabta maxaan ku la yaabay sabab dee gabadh waa dhowr 20 jir marka isaguna waa dhowr 50 jir farqi waxa u dhaxeeya ilaa 30 sano dee wuxuu aad baan kaaga weynahay oo waxay tiri anigu wiilasha yararka ma jeceliba dooqayga waxaaba ahba 40 sano ugu yaraan qofku inuu jiro wiilasha yararka dhalinyarada waxay tiri lama sheekastaba ilaa dugsiga markaan dhigan jiray jaamacad markaan akhrisan jiray iyo waligay waxay tiri dhalinyarada lama sheekaysan ma ka helaba dhalinyarada saas miya ya salaam gabadh fariida tahay oo aqli badan alla aqliga quruxda aqli baa ku dheer أصيل وحده ضميسترن تعلين وروح عقلي ما شاء الله بس تبي حد مركو إذا ما كاسودوننا هاي هو إذا يقصدونه مرة البوح ليش مركو حن كبقى هو إذا إني تيدو هو إذا إني أقولان ويدو هو إذا إني محيتر هذا هو إذا إني سانتر هذا حن كبقى أنت نحاس كي يفرو ونعرض إذا نكو عيبه كدبنا إني هو إذا تيدو وترى هذا أضيكم مجورنيو ما حيبان كبقيا ما حيبان كعبسن أنت أنا وحده هرتك صادونين وننسى رسمي يكون صادونين هو إذا واحد كتر هذا نوع عاس ونوع عاس ورني كانوا شقيا حدهن كان عصده إسكال لنا في عنه هنتي هيستوي دقن كرا ونوينو كنت ندور شركة أفرسنا شراء بانروا رأيك محمية بالكل هو إذا واحد ترى هذا بان أركينا واحد روايه كبدي هو إذا بأتمد إذا هو إذا وشاكستان كذب الأرنك بأشاكتي هو إذا بأولياء بتوحد المياد وعلنتهاي كنتن يا أفر سنة أديكون واحد جرتا لواتن يا أفر سنة مثلا لواتن يا 6 سنة ميلها سي جرتا waxay ku tir aabaha qof la eg inaad guursato maxaad ka faa'iideysaa mid waalan tahay maxaa ka qaldan maxaa ka siya waxay tir marka adiguba hooy Soomaaliya guursanin aabahay isagoo ka weyn waxay tir waa waxaan ka shalaayay qof iga weyn inaan guursaday saan markaan aan isku guursanay wax yar sanado yar wada joognay waxaan muusaday muddo waxay tir 5 sano meetin 6 sano kalkaaliso caafimaad aha kalkaaliso qof xanuunsanay oo aan sida u hayo daryeeli ugu dambeyn uu iska dhintay ana kaliya ku soo koriyay cidla iyo rafaad iyo dhibaato kugu soo koriyay qof dambe xataa ma guursanin waxaan ka baqay inaan ama nin kale intaan guursado guriga keeno iyo ninkaas inaan isfahmi weyno ama ilmo kale intaan ninka isfahmi weyno ilmo kale hadana oo bila aabam aabhood ka dhintay ama aabhood igu fur يعني waxay tir guurka markii koowaad buu iga qaldamay meel qaldan iga galay ka bacdina waxaan go'aan ku gaarnaa gabadheed yarta korsado bes noloshayda dhan waxay tir adan ku kharash garay adna waxaad rabtaa in qof aabaha la guursato ma jirto waxay tir ma dhacaysa taas iska ilo waxaas dhagaha laga qayli asiiliyada murugaysan oo hadii xanaaqsan bay u tagtay maalinkii dambe odaygii baqti ay waxay tir hooyaday way ila yaabtay waxay tir yani waa mustaxiil waxaas inaan dhinto
geeridayda ka xigaaba baa kaaga sokaysay meydkayga inuu guriga laga sii bixinay aad aragtay inaad guursato qof kaaweyn waxaad ku ogolahay inaad guursato qof markuu ugu weyn yahay waxa tir 35 sano jira ugu badnaan qof kaaweyn 10 sano 9 sano 8 sano balaayo qof 30 sano kaaweyn kula raadsatay waxay tir qofka saas u weyn maxaad ku maagtay marka horeba odayga wuxuu soo kuuma sheegin dadku isku fikir maaha adigu sidaad u caqli badan tahay oo kale dadku sidaad oo kale ma wada soo kuuma sheegin anigu waan ku jeclahay gabadhina waxay tirahdaan anigu waan ku jeclahay maalin kasta la isku ooyo jacaylkeenu waxa ku dambeyn doona jacaylkeenu waxa ku dambeyn doona odayga wuxuu bilaabay marka gabadhii inuu yiraahdo hooyadaasi tartiiban uga dhaadhicinaynaa أنا عادو أنت هو إذا ديك أقول أنا سوقتي عن إسك قاضنا مرمرك قار دتكن شقاله دكان كشوين دكان كجتجينا وإنه إسك بحي مالها ينسو وريجي وأنت الحيسينا مالها وتلا ذا خطرتي مخايدها خطرتي مكوجيني مالها سنكاسو عشيسيني مالها سين وضل الحيسينا مرمرك قار مال مجال ذاك بحسب بينه آذينا كبدي واحد ترمي وانت مرك ميس قبنا مرك مال مجال ذاك بحسن آذينا ميدا كله واحد ترى أنا هو يا كل جدي سوكريسي وعمرجيدي أردن وقتجيدي أردن يقول ما يصي هو ذي واحد تردي يقول جسان بحتاجنا ما كل حاجة زي مركان شقة حلي إنا كقنعية إنا شقة عادو فوقت يقول قاضتي ميلها إنا صعد ميلها إنا نستاجا وحاس مرة بتوم يروح قفوين بتوقع قاعد ده وده ميدا شقة كول قريبة شوفتكم وأوجي مرة وحربا والمركان ميلها يصير عن ما يوحد عنه حاسم أوجل هي وحر مركان ميلها عادي جا ميلها ضد كشوجانة كفاية لقى عب مخالها عن كسوع عشانه meelihii bay gabadhii dhowr habeenkii u raacday way fahmi weyday markay ama cashaynayaan ama meel haday shaaxi wax ka cabayaan wuxuu isku dayay inuu soo dhawaado inuu gacanteeda taabto gabadhii waxay tiraahdo qof weyn baaba tahay qof weynimadaada maad ku joogto maxay tahay saad u dhaqmaysid maya wuxuu yiri waan ku jeclahay soo ma ogdaan weynaan ku guursadaan rabaa xaaskayga mustaqbalka laba gooraba gur iyo garba ana ku leh xaaskayga mustaqbalka tahay xaaskayga mustaqbalka inaad tahay soo ma ogid hooyada waynu sasabayna waynu ka dhaadhicinayna mararka qaar wuxuu yiri waxa la rabaa inaan si fiican oo habiyo u sheekaysano meelahan waa shaarac si fiican loogu sheekaysan karo taleefankana si fiican loogu sheekaysan karo xagee loogu sheekaysan karaa marka si fiican de meelaha oo loogu talagalay in lagu sheekaysto xagee loogu talagalay de wuxuu waxa jira guriyo yar oo goblan oo diyaarsan oo loogu talagalay dadka lamaanaha inay saacado kireystaan oo ay ku soo sheekaystaan كبعدنا قولي إنه تجينا معان يعمتي عشية وحول بينه قاعدنا هالكاس إنه كسر شاكس إنه وقت إنه كسر قاعدنا كدي بينه صار قلنا مركب قولي واحد المكان تقو أنا عادي إيه الشيطان سد حذينا ما هو واحد أنا عادي بس أنا شو إنه الشيطان بس تحنا قلنا قلنا يلي وين أوجه هيكون مرة عيت القولي مية وحنكون شاكسين أنا تلافن يميلها نوكله وضيق يروح يسكت قبل أنتوا جد قابن بكري ميل يراع ميل عن آدم ميل في عن ميل وشاكسين كرم ما يجرت ترى حاسس كإلهو ومركان isguursano marka meel khaas ku sheekaysanayno haye wuxuu marka dib mal anu waan ku jeclahay mar walba ogow inaan ku jeclahay sida aad rabto baan ana kula rabaa odaygi maalmaha kamida iyo gabadhi iyagoo jacayl barti u dambeysay maraya barti u dambeysay iyagoo maraya oo la rabo maamadan inaan la sisabo gabadha uu ku tartiib ugu qanci inaan ani adii isguursano ninka waan jeclahay ku dhaw iyaduna tirahaye oo gabadhi hooyada dhinaca ka shaqaansanayso odaygiyo sidoo uu ooyay indhihi casaadeen oo fuuray maalin dukaanka yimaad gabadhani xilli hore bay dukaanka timaada dadka shaqaaleed dukaanka ka shaqeeyo dhan qofka ugu horeey qofka ku xiga weyn hadayna iyadu ka ugu horeey ahayn odayguna si fiican buu gabadha u aamino furayaashii wax walba loo dhiibaa lagu aaminaa marar badan iyada dukaanka furta odaygiyo gabigii suuba dukaanku marka meel weyn oo dukaan maadaama yahay odaygani xafiisi iyo meelo u khaas oo lagu la hadla iyo meelo isagu uu iskaga nasto ku dhaxleeyay dukaanka odaygu wax weyn ka qaldan yahay oo isaga dhanba warweysan oo rafaadsan yimaada xafiiskiisa hagal gabadha ka daba gasho maxaa kugu dhacay baqtiyo xabiibi maxaa ku helay wuxuu yiri waxa helay anigu waa nasiib xumahay markii koobaad guulku iga halaabay waxaan guursaday gabadhaanan isfahmayn oo xuno maxayo sidana markii dambe gabadh fiican helay oo ifahmaysa oo yar oo qurux badan oo islaahay hadda umbad guursanaysa nasiib xumadayda wuxuu yiri maalin dhaweyd baan xanuunsaday bariyahan basi baan u xanuunsanay culays baan dareemayo meelahan laabta ay xanuunayso waxba iga qaldana haye isbitaal baan aaday shalay jawaaba dhiigii waxba la iga qaado waa la ibaaray jawaabaha bari u soo noqolay ugu dhahay hadda markaan guriga ka soo baxay in isbitaalkii soo maray in jawaabihii soo qaatay waxa la igu yiri waad xanuunsantahay beerkaad ka xanuunsantahay qaaliin si degdeg in lagu sameeyo baad u baahan tahay oo beerkaaga qayb laga jaro maxay lagu sameeyo san la dhaahdo waxay tir marka waxaas waxa la ooyo la murugooda waxaan u maleynaa carruurtaadii qaar dhinteen inuu wax kala kugu dhacay masiibo kale inuu kugu habsatay waxay tirtay qof islaam soo matid qof markuu xanuunsado waxa la rabaa inuu ilaahay baryo yiraahdo alxamdulillah oo wixii xal ay dhaqaatiirtu u sheegeen oo sameeyay oo in maxay ku soo kordhinay dad xanuunsatad oo yidid
وانت maxay ku soo kordhin marka inta kala qof waxaan ku dhacaya aan ku qanacsanayn oo qadarka Ilaahay aan ku qanacsanayn oo waxaad noqonaysaa adiga dhanba deeb waxaas waa qalad oo gabdhiga haweenis odayga meeshana uga shamaxaadro ولا واني وحير والله وارنتا واتسحنتا هاي لكن وحير قلينك وان ويدي دخاتيرته وحي يقولون waa kharash badan dib ma ytir waxaas waynu heleynaa kharashka insha Allah waynu heleynaa xageen ka helina wuxuu dhan waan iska fiicanahay dhaqaale fiican baan haystaa guriga aan deganahayna anaa le dukaankana anaa le laakiin wuxuu caruur ba jaamacada iyo dhigata iyo dugsi saro kharash hadda aan isbitaal ku galo ma hayo dhowr iyo $30,000 lacag ku dhow 30,000 amal baa wuxuu la iga rabaa hadii aan galay qaliinka marka wuxuu lacagtaas ma hayo lacagtaas intaan ka helin xanuunku inuu siyaadaan ka baqaya de waa inaan wuxuu maalmaha yar naftayda nolosha iiga dhiman waan dhiman rabaa waa inaan iska tiriyo oo maalmaha ee dhiman oo dukaankayga ku dhex murugeysnaado caruurtaydana iyagoon jaamacadaha ka qalin jabinin inaan dhintaan ka baqaya ala caruurtayda inaan arkaan rabay odayga xalaalo gabadha odayga oo halislo oo gabadhi waxay tiri khayr niyada u sheeg lacagta waynu xalinaynaa insha Allah wax dhiba ma jiro waxay tirday isdajiyo gabadhi waxay odaygi waan waanisaba odaygi maalinka dib wuxuu ku yiri anigu marba hadan saan u xanuunsanahay waan ka xumaa inaan kula gooyo ma rabo sababtoo kuma guursan karo hadii xataa qaliinka iyo waxaan oo dhan aan galo qof de waxaan noqonayaa qaliin galayo beerkiisa baqbad la jarayo wax kala lagu beerayo wax kala lagu sameeyo de caafimaadkiisu uu tacbaan yahay marka inaan ku dhibo ma rabo inaan waqtiga ka dhumiyo ma rabo waxaan rabaa inaan iska kaafasaxo qofka guursanaysa iyo qofka xiriir la sameeynaysa inaan ku fasaxaan rabaa waana ku jeclahay oo wala saan ku jeclahay mid kale wuxuu mar kasta aan dukaankan kugu arkaba wuxuu ma si qaracmay qalbiga ay xanuunaya waan ku bariyaa shaqada iskaga tag sababtoo ah mar kasta wuxuu markaan ku arko waan xanuunsanaya xanuunka igu siyaadey oo qalbiga ay xanuunaya oo aniga dhan wuxuu beerka ay xanuunaya wadna xanuun inuu igu siyaadaan ka baqaya shaqada iskaga tag waan ku bariyaa maalin walba uu ooyaa gabadhi way ooydaa gabadh shaqada way ka tagtay way fikirtay gabadha jacayl baa hayade meesay xataaba mee harsataa mee hooyata muddo 3 bari ninkii uga fikiraysay uun waqti ahaa bay go'aansatay lacagtii akoonka ugu jirto 23,000 qiyaas 23,000 iyo wax 24,000 adiga iska qiyaastii wax yar dhiman bay hayd baleedi 24,000 ee doorar bangiga ugu jirtay intay soo qaadeen baqti faraha ka saarto tiraado qaliinka hadda samee wax yar ba ka dhiman waxa ka yar ka dhiman de adigu ku darso kadib taanu waxay tiri waan ku jeclahay waxa tay odagayga mustaqbalka jacayl baan ku qaba waxaan rabaa inaad caafimaadkaaga dantu igu jirtaa kadib markaad bogsateed caafimaad markaasaan hooyaday ku qarcin inaan iskuursano markaasaan waxay tiri de aad caafimaadid baan خلاص lacagta xataa deyn ma aha way siisayba hooyadeedu ma sheegin saaxiibadeedu ma sheegin cid ay u sheegtay male lacagtan cunugtan iyadoo yar ba bangiga loogu soo magaceeda lagu qoray mar haday qaan gaadhay goormayde lacagta iyadoo maamulan kartay 18 sano markay gaadhay hadana dhowr ilo waxay jirtaa 20 sano waxay awood u leedahay marka lacagteeda inay bangiga ka soo wada baxsata say doonto inay tiraahdo iyadoo hooyadeed iyo walaalkeed iyo cidna u sheegin walaaladeeda marka baxda waaweena hal wiil baa jira oo nin weyn oo qiyaastii waqtigan da'diisa oo kala jira oo si fiican isugu dhow yihiin saaxiibina xiriir fiican leeyihiin kaasna waxba uma sheegin hooyadeed waxa uma sheegin saaxiibadeed Safiya cid ay wax u sheegtay male gabadhi odayga bay lacagti faraha ka saartay odayga waa ka ooyay lacagta inaan ka qaato ma rabo gabadhi waxay tiri caafimaadkaaga wax walba iiga muhiimsan anigu waan ku jeclahay waxa tay qof aan si dhabo u jecel waxay tiri $20,000 maxay tahay marka beerkaygan bar ku jari lahaa haday macquul tahay qaaday ku tiri lacagta wuxuu yiri waayahay haddaan isbitaalka tagayaa markaan isbitaalka ka soo baxana waxaan isku dayaday cimrigayga inta ka dhiman bur cimrigayga inta ka dhiman ideenan adig khaadim ku noqdo abaalkaaga miyaan gudi karaa gabadhi muddo joogtay lacagtii marka waxay ku haysaa kurbo oo wax isla hooyada armay ogaataa hooyadeed markay ogaato qaylada iyo canaanta ku dhici doontay ka sii baqaysaa odaygii iyo xaaladiisa iyo sidoo noqdayna way ka cabsanaysaa waxay isla isaga wuxuu ku yiri marka soo ku arko waan kugu qaraacmaya dukaanka iskaga tag shaqada iskaga tag waxa ku yiri gabadhi odaygii way rabtaa inay ka war doonto mana rabto inay dukaankii tagto lacagtiina way ka kurbaysan tahay hooyadeed inay ogaatay ka baqaysa sibay kurba u dareentay qof ay ku nafistay u baahatay marka ay waxaan ay sameysay u sheegto saaxiibadeed bay wacday Safiya waxay tiri dukaanka ma joogtaa waan ku imanayaa maanta inaan cabaar kula sheekaystaan rabaay haye waxay tiri imo shaqada saad uga tagtay kuma arkin laftirkayga waan ku xiisay dukaankii Safiya ugu tagtay Safiyaha u waranta marka hatraade waayahanba waan qarxi rabaa warban saan isugu celinay inaan bugdha bas ay dhiman inaan kugu nafisaan kugu imid haye soo dhaw bal khayr sheeg waxay tiri de odaygaasa markii hore
odaygan iyo gabadhu inay isjeclaayeen hooyadeed inay u sheegtay hooyadu inay diiday waxaasoo dhan Safiya way ogeyd kaliya lacagta un bay ka qarisay waxay tiri lacagtaydii gurigii waagaan yaraa aabahay markuu dhintay dhaxalkaygii intaan saan u soo wada lacagtii oo hal shilin ka reebin baan bakhti faraha ka saaray gabadhii waa tayaabtay madaxa qabsatay naamiyadu waalan tahay ma hantidaadii kali ahayd haysatay na hooyada may ku ogtahay may hooyaday ma oga waxay tiri waxaan ka baqayaba waa hooyaday markay ogaato hooyaday falcelinteedu waxay noqon doonto waxay tiri marka waad qaldantay miyaad waalatay na maxaad samaysay waxay tiri odaygu wuu xanuunsan yahay anigu waan jeclahay si dhab aan u jeclahay isaguna si dhab u ii jecel yahay markuu caafimaado baan isguursanayna hooyaday waxaan rabaa tiri mar labaadka markuu isoo doontay diiday tiraado kuma siinaya ninkaas inaan idhaahdo lacagta akoonka iigu jirtay oo dhanba isagaan waa hore siiyey markaas dee ha ogolaato ha naxdo ha yaabto sadmada darteed markaa ha u ogolaato saas miyaha waxay tiri marka odaygan bakhti ah wax bukaba uma ekee goormay ahayd markaad lacagta siisay dee waxay tiri hadda waxaa laga joogaa meelahaas isbuuc dee waxay tiri marka horta isagoo dukaanka ka maqanba ma arkin hadduu xanuunsan yahay uu beerka ka xanuunsan yahay oo qalliin galayo dee waxay inuu dhowr beri dukaanka ka maqnaado ugu yaraan midda kale waxay qof xanuunsanayaba uma eka qofku markuu xanuunsan yahay khaasatan dee beerka ka xanuunsan yahay gabadhan marka la yiraahdo Safa labada gabdhood waxbay soo bartay jaamacaday ka soo baxeen Safa marka caafimaadka iyo bay wax ka garanaysaa sidoo kale waxay tiri dad waxa jira marmarka qaar dhaqaatiir oo qaraabi asxaabnahay waxyaalo caafimaadka ku saabsan aan weydiiyay waxaan u baahdaba waxay tiri marka sida aan maqlay iyo sida aan ogahay qofku markuu beerka ka xanuunsan yahay kalarkiisu xataa midabkiisu uu bedelmayaa wuxuu noqonayaa caato dee qof xanuunsan buu u ekaanayaa qof ama uu xanuunaya beerka ama laga hayo kaliyaha oo shaxshaxa oo labisan oo qurux badan oo saan iskaga xaragoonay oo shaqaysanay oo maalin walba dukaankiisa imanaya may waxay tiri waxba qaldan waad fududaatay doqon yahay inaad ii sheegtaa la rabay lacagta naamiyad waalantay na odaygan waxay tiri wallahi qof xanuunsanaya uma eka qof xanuunsanaya beerkaas sheegtay cid xataa qof xanuunayso uma eka gabadhii asiilaad waxay tiri mayahay waalinaya odaygu xanuunsan yahay been iimuuna sheegaynin bal waxay tiri marka aan hadaba gal ku sameynaya inuu xanuunsan yahay in kale maalin kasta waan soo salaami maalin walba waan fiirin xaaladiisa caafimaadkiisa see tahay iyo wara soo ma fiicnid waayahan waa yar dhafar xunta mid xanuunsan waxbaan ku dhidhihi bal waxay tiri adigu isbuuc kale ka warsuweynaa waayahay gabadhii lacagta markay siisay isbuuc baa ka soo wareegtay Safiya waxay tiri marka ninkan hal maalin dukaankiisa kama maqnaan isbuuc kale la joogay hal maalin ninka dukaankiisa kama maqnaanin waana sidiisii la midabkiisa isbedelin walaa uuna dhuuban qoftii bukaba ma haba ma buko meelba laga ma hayo gabadhii asiilay saaxiibadeed u yeedhay waxay tiri kaale ii imow doqon yahay aan laga doqonsanayn waad qaldanto waad fududaatay adduunka qaladkii ugu weynaabad gashay ninka waxay tiri ma xanuunsana waan jeclahay badanahaaga u leedahay xataa jacaylkii ka dhaxay khayaaniya been buu ahaa xanuunkiina khayaaniya been baa waxay tiri ma xanuunsana intaad iga maqnayd oo dhan iyo laga soo bilaabo xataa markaad lahayd lacag baan siiyay maalin walba waxay saasaan u agmar maraa subax walba waan salaama xaaladiisaan weydiiyaa dee qof xanuunsanaya waxay tiri uma eka maalin inuu dukaankiisa ka maqnaado iska dhaaf hal saac xataa ma maqnaanin gabadh kaloo keensada booskaaga markuu adiga shaqada ka yari ku yiri waa kugu qaracmaya markaan ku arko beerka ay xanuun indhaha ay xanuunayso ma ku dhihin gabadh kaloo keenay gabadha kale waxay tiri isagu si isu fahamsan yihiin kaale arag dukaankooda markaan tagaba ama aan israad odiga aad fiiris bal wuxuu sameynay ama aan ka wardoonay dukaanka inuu joogiyo in kale gabadhaas kaashiirku ama xafiiskiisa sii galaysa ama ka soo baxaysan arka iyadoo qoslayso dhowlacadaysa meeqa maalin baan arkay xafiiskiisa ka soo baxaysa waliba gabadhii asiileed waa tira laana doqon noqday maxaan sameeyaa waxay tiri sug ana u tagay odayga way u tagtay saan markuu arkay waa ka naxay waa ka yiri haye khayr sheeg asiili sooniga kuuri dukaanka ha imanin soonigi hershiini soonigi balanay waxay tiri waan ka soo wardoonayso ma bugtid Soomaalida xanuunsanayn halla wuxuu yiri de maxaan kuugu abaalgudaa ilaa jannadii ha ku geeyo qaliinkii waan galay waa lagu guuleystay alxamdulillah waad fiicanta waad bogsado waan fiicana waan bogsado isbitaalkeed gashay oo isbitaalka lagu qalay isbitaal buu sheegay isbitaalada private ka ilaa lacag badan baan igu baxayso yiri waxay tiri marka waxaan rabaa taqriiradaadi waxyaalihii baaritaanada iyo waraaqahaaga iyo dhakhtarka ma arki karaa wuxuu yiri maxaa jira ima aaminaysid maxaa qaldan maya waxay tiri waan ku aaminayaa kaliya waxaan rabaa inaan arko waraaqahaaga iyo isbitaalka aad tagtay iyo waxaas wuxuu yiri hadda waraaqaha halkan iima yaalaani markaan isbitaalka aadayna gurigeyga ka tagay markaan isbitaalka ka imid gurigeyga tagay waraaqaha anaa maalin kale ku tusay gurigey jiraan haye waxay tiri marka maalin kale aan ku soo noqon doono haye wuxuu yiri way subaxii dambe hadana ku soo noqotay waata u timiday wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim dukaanka markaad ka shaqeynaysa maad isu malaynaysaa macnaha subax walba maxay tahay dukaankan aad dhaxtaagantay waxay tiri waraaqihii aad shalay igu tiri waan ku tusi aaway waraaqihii wuxuu yiri waraaqihii akhi waan soo ilaaway ma soo ilaawine
waraaqihii kuwii ugu muhiimsanaa rabay inaan ku tusay kuwii qaliinka sharxayay ah dhakhtarkii hayay baa magaalo kale safar u aaday wiilkaygii baan xataa jaamacaddii maanta ka baajiyay oo wiilkii baa dhakhtarkii magaaladu aaday ka daba aaday oo waraaqihii ku maqan oo waraaqihii baa magaalo kale loo doonay waxay tiri been baad sheegaysaa odayo beenta badan ee kadaabka anaa qaldamay anaa fududaaday lacagtadiisii hal waxay tiri goormad qaliin gashay dukaankaaga hal saacba kamaad maqnaanin maalin kastaas u dhex taagneed wallahi waxay tiri dad dariska dhan iyo dadka dhan baan kugu fadeexday dadku maxay ka aaminsan yihiin odaygan nin dee bismillaahi malaa'ig cirka ka timid camal qof mu'min dhaafay dariskoo dhan jecel dadku aan qaldami karin been sheegaynin dadkoo dhan dee qof ceeb ka saliinay ka aaminsan yihiin waxay tiri dadka dhan waan kugu ceebayn yaa ku aamini buuri marka yaa ku aamini meeshan 30 sano deganaa weliga iyo allahayna qalad ma galin haddaad tiraado odaygana lacag dhowr iyo $20,000 iga qaatay qof kaa aamini ma jiro tuuga yahay markaad dukaankayga ka shaqaynaysa waad i xaday adiguba markaad i xaday een kugu qabtay tuugnimadii baan shaqada kaa eriyay maadaama tuugnimo kugu qabtay oon shaqada kaa eriyay baad rabtaa miya hadda inaad ani dambi korka iga saarto dhowr iyo $20,000 xageed dhowr iyo $20,000 wuxuu ku haysataa xageed dhowr iyo $20,000 ka keenaysa adaaba miskiin xuno aniga dukaankayga ka shaqaynaysa dhowr boqol ka qaadanaysa dad dhowr iyo $20,000 haysato ma dukaan furatid odaygii dee gabadhi waa ka indhaha u shitay waxay tiri bakti ma aniga aw jacaylkii naga dhaxay waxaas wuxuu waxba kama jiro awalna inaan kugu maara roobaan rabay oo yacni aan kugu meel gaadho dee meel guri baan inoo kiraynayaa wixii aan ku lahaa yacni waxbaan kaa rabay dantiin markii ii suurtagali weydina waxaan damcay inaan iskaa dhaafiyo dukaanka kaa eriyoon mid kale keensado ku meel gaadho mid kale markaan keensadayna sidaan mid kale ku keensan lahaa baan ka fikiray marka waan xanuunsanay waxaan markuu lahaa iyaduu rabay inuu isdhaafiyo iyo dee lacagta xataa inuu rabay ma ogi ilaniyada u sheegtay lacagta hadda ka hor bay u sheegtay inay lacag banki u taalo aabaheed markuu dhintay dhaxalkii aabaheed hooyadeed siday tiri wax walba oo nolosheeda ku saabsan odaygan way uga sheekaysay gabadhii dee iyadoo indhaheeda ilinsaas uga soo taagtaagan tahay buu dukaankii kasoo eriyo lagu yidhi bax saas intaan kuu qabto qadaadka baan halkaas kugu tuuri jidka haddii kalena booliis intaan kugu wacan ku xidhi buu ku yidhi bilaa eedabad yahay intaad i xaday oo lacagahaad iga xaday oo dhan aan iska kaa daayo oonan ku qabsanin oonan ku dacweynin oo mushaharkaagiina ku siiyey baad hadda ani i haysataa baad leedahay ninkanaan dhowr iyo $20,000 siiyey wallaahi wuxuu mar dambe haddaan dukaankayga kaabadiisa kugu arko inaan ku xidhay oon jeelka ku dhigay idhaaf gabadhi dee iyadoo ciil hadli karin oo indhaheeda ilinta ka daadanaysa saaxiibadeed ha u timaada safiya waxay tiri odaygii xumaa eedii ammaanaysa ee munaafiqa soo ii galay horta waxay tiri muu xanuunsanayn anaa qaldamay waana fududaaday lacagtaydina waxay tiri dee khalaas hooyaday markii ay ogaatana kaw unba iga siin wuu isoo eriyay wuxuu igu yidhi waan ku xidhay waxay tiri bal sug anaan kuu raacay ina bixbal aan u tagnay bismillah odaygu waaba laba wajiile yaa taxta dawaahi sawaahi bay dhahan carabtu alla maxaa qof miskiina oo wejigiisa uu yahay barii oo weji mu'mina leh oo hoosta munaafiqka maxaa jira ilaan ilaahay unba qof walba qalbigiisa waxa ku jira uurkiisa qofka afkiisa waxa ka soo baxay iyo wejigiisa uma ina ku arkayna gudihiisa ma ogin ilaahay unba og gabadhii way soo raaceen labadii gabdhood odayga xafiiskiisa baa loogu soo galay safiya waxay tiri anaan ku ceebaynini inaan dadkan dariskee mu'minka sheekha dee mu'minka ka aaminsan yahay aan kugu fadeexadaynini gabadha sii lacagteedii wuxuu lacagtee gabadhan anigu lacag kama qaadanin ayaduna waa tuugo adiguna tuugo kala tahay sababta adaaba ii keenay laftirkaagu gabadhan markaad ii keenaysa inay ixadaad rabto in la ixadaad heshiis ku ahaydeenba lacagtii aniga la iga xadiyay baad shuraaka ku ahaydeen wallaahi wuxuu intaan gabadhan dacweeda adna la geli jeelka iga baxa dukaanka iyo bila edamiyahu gabdhihii waa la soo eriyay dukaankoodii way ku soo laabteen asiil waxay tiri maxaan sameeyaa ninka ma dacweeyaa waxay tiri lacagta markaad siinaysa ninka seed ku siisay inkaar qabto waxay tiri adigu laftirkaagu waad fududaatay inaad ila tashataa la rabay dee waxay tiri bankigaan tagay lacagtii oo kaashaan soo qaaday oo saa u xidhxidhan kadibna dukaankiisaan ugu keenay dee hadda waxay tiri marka intaan caddayn ku haynaa lacagta akoonkiisa kumaad wareejin bankiga inaad lacag kaasha ka soo qaadatay haddaad caddayn loo hela xataa lacagtii xageed geysay dee ma ninkanaad siisay ma qof kalaad siisay ninkan miyaad nabanaysaa yaa og cid og ma jirto gabadhii dee waata iska oyday saaxiibadeedna waata iska oyday saaxiib iska aamu saaxiib maxaan samaynaa saaxiib lacagta seen ku soo celi asiili waxay tiri ballan waxaa igu ballan ninkaas inaan lacagta ka soo ceshadaa ninkaas waxay tiri lacagta waan ka soo ceshanay markay soo baxayeenna uu ku soo qayliyay mar labaadkii asiili waxay tiri waxaan ballan kuugu qaadayaa arrinta aad igu samaysay inaad ka shalaydo waa ballan aljeeriyaanku waxay dhahaan marka haddii nin uu kuu dhaarto hadduu yacni qof nina maanta intaad isdagaashaan uu kuu dhaarto iska seexo inay waxaa laga yaabaa daqiiqada cadhada uun ahayd uu iska kaa cafiyo
laakiin gabadha hadday ku dhaarato yaa weylak haseexan yani dhaarteedu way kaga dhabaynaysaa asiil waxay tiri markaa iyadii saaxiibadeeda waxay murugoodaan barnaa waxay tiri sukorta iga joojo oohinta bows iga dhe waxay tiri oohin horta waxba iima soo kordhinayso iyo calaacal aan fikirno fikir iyo maskaxda ninka lacagta kaga soo ceshan lahaa ila degbay tiri xal ila keen xal ma oohin iyo saan maxaad u yeeli weydaysaan maxaad u yeeli wixii wayba dhaceen ninkii lacagti waan siiyey waan qaldamay wuu ikhayaamay waa la ikhayaami karaa bini aadan baan ahay waxay tiri sidaan lacagtayda kaga soo ceshan lahaa baan rabaa waayahay waa la fikiray saanaan samaynayna saana say u fikirayeen go'aan bay soo qaateen gabdhihii go'aan bay gaadheen go'aankii iyo kaartadii ninkan lacagta lagaga soo celin lahaa gabdhihii go'aan markay gaadheen waxay tiri asiili waxaa inala gelaya hawsha habro wadaagay nin ah oo dhalinyaro ah iyo walaalkeed asiili waxay walaala yihiin wiil iyada ka weyn oo nin weyn oo kan wax qaa'imaya meelaha da'diisoo kale ah laakiin ay si fiican saaxiib yihiin oo isjecel yihiin yani aad iskugu kalsoon yihiin waxay tiri walaalkay baan wax u sheegayaa iyo habro wadaagay labadaas nin iyo aniga adi afarteenaas waxay tiri ninka intaan qabano lacagta ka soo celinayna qaabkii loo qaban lahaa iyo lacagta qaabkii looga soo celin waxaas dhan waa la degay qorshaha waa la degayba waxa la riwaayay marka waa hagaag gabadhii asiil habro wadaageed iyo walaalkeed bay wacday meel bay kula balantay way u sheekayso wixii dhacay oo dhan bay uga sheekayso walaalkeed waa ka xanaaqay ee ku yiri miyad waalan tahay hantidii dhan ayadu aabaha kaaga dhinta dhaxalkaaga saaladin u siisa xataa aan ku qabin ninkaaga haduu yahay un maxaa ku hayn lahaa waxay tiri waxa soo dhan anigu dhacay de uma baahni calaacal iyo waxa maxaad u samaysay wixii waaban sameeyay xalkii baan baadi goobayahay wuxuu maxaa sameynaa kaartadii ay soo dageen bay u sheegtay waxay tiri marka waxaan u baahnahay guri meel guri ah oo ninka aan keeno guriga anaa keenay batasaan u keenay anaa og idinku waxay tiri guri baa diyaar igu sii ahaanaysaan an ninka anoo wadaan idin keenay gurigii marka ninka la keeni lahaa baa la iska rabaa nin waxaa jira marka carruurtan ay qaraabo yihiin waa asiil iyo walaalkeed oo wadanka kule guri filla ah marmar buu wadanka yimaadaa bilaha fasaxoo kale dhowr bilood buu joogaa faransiisku degan yahay faransiisku ku laabtaa waxay tiri ninkii furaha haya marka asiil walaalkeed baa furaha haya marmar buu guriga usoo hagaajiyaa marmar gurigu haduu doono isagii asxaabtiisu iska tagaan guriga marka ninkana ka mas'uul asiil walaalkeeda weyn waxay tiri guriga ninka qaraabada aan ahayn filladii aad furaha hayn jirtay soo ma haysid haa bas waxay tiri ninka gurigaasan kula ballamaya wuxuu yiri waaya waxay tiri guriga idinku iisi taga guriga waxa sii tagaya marka safa iyo asiil walaalkeed iyo habar wadaageed gabadhii waxay tagtay marka xilligan marka la ballamayo guriga waxaan la diyaarsanay waa maalinimo ninka caaba la rabaa guriga in la geeyo maalinimadii bay u tagtay waa markay dhowr bari ka soo wareegtay xilligii ninkan uu lacagta qaatay uu gabdhaha soo eriyay waxay tagtay dukaankii bakti asiili markuu arkay hayaaba tiraada isdaji shaydaanka iska naar wax yar inaan xafiiska kula fadhiistaan rabaa in kula hadlo hayay waayay bal ilaa hadal maxaa jira maxaad igu soo noqonaysaa inaan ku xidhaad rabtaan ugu dacweeyo waxay ku tir dacwad maxay iyo xidhay waxaad ka sheekeynaysaa muxuu yahay waxay tiraan soo moogid inaan ku jeclahay soo jacaylkayga matid waxay tir horta meed waa alantay adigu gabadh dhowr iyo 20,000 doolar ku siisay iyadoon xataa ku doonanayn oo xaaskaagii ahayn intee in la eg bay ku jeceshay kugu kalsoon tahay baad u malaynaysaa waxay tir jacayl baan ku qabaa saaid baan ku jeclahay maalinkan halkan kaaga tagay waan xanaaqsanaa ciil baa iga kahay inta bariyan ka maqnaaba waxaan isku dayay jacaylkaaga inaan is ilowsiyo qalbigayga waxay tiri waan ka xakameyn kari waayay waan kantarooli waayay maalin kasta halkan aan ka noqon jiray qalbigayga isoo jiida dukaankaagu isoo agistaajiyaa kadibna waan xanaaqa waan noqdaa ugu dambayn qalbigayga u hoggaansamay waan ku jeclahay de jacaylkeeni aynu dib u soo ceshano de xabiibi soo jacaylkayga matid soo maxaygayga matid gacanta ha qabsato ha u soo dhawaato awal isaga isku day jiray inuu gacanteeda qabsado markaas iska celin jirtay gacanta ha qabsato isaguna gacanta ha qabsado waxay tiri marka mar walba waxaad igu oran jirtay aynu tagno meel nafisa oo habeenu ku sheekaysan karno anaana ka diidi jiray ma garanayto marka waxay ga qaldanaa jacaylku saan eeguma badnayn hadda naftayda inaan ku hibeeyaa diyaar u ahay tee wuxuu yiri yaa salaam maxaa mar hore saas ku diiday waa ninkii dhanay gabadha hadda dhowr 20 ku qaxaimay lacagtu qaxaimay iyo dhaartii loo dhaaranay wixii dhan haba iloobaba wuxuu yiri maxaa mar hore saas ku diiday waxay tiri hadda meel alaala meesha tirada waynu aadaynaa baan diyaar ku lahay laakiin maadaama tahay nin weyn oo aabba ah oo reer leh oo sumcad leh oo suuqana de waliba sumcad kule qofka sumcadiisu markuu ganacsado yahay number 1 waa sumcadiisa mar walba xataa markuu
iyadii isagoo ay isjeclaanay dukaanka ka shaqayn jirtay wuxuu dhihi jiray waxaan rabaa inaan leeyno ogaanin inuu wax naga dhaxeeyo hadii kale sumcadayda baaba'aysa sumcadayda suuqa dhan ana ugu khatarsan ana la aaminsan yahay ana ugu sharaf badan ana ugu sumcad badan waxay tir marka sumcadaadii waxaan si una kaaga dhaawacmin hotel iyo guryaha la kireeyo laga yaabo dadka xun inay aadaan iyo waxaas inaga daa ana inoo hayay tir guri ninaan qaraabanahay oo Francisca degan baa marmar yimaada furahan hooyadii baa u haysa furahan caaw hooyo ka soo xadi gurigaynu tagaynaa seedo aragtaa wuxuu yiri yaa salaam yaa heli karaba cunto iyo macmacaan iyo cabitaan wax kasta waxay taana inoo si diyaarnay aduu iskaan waa la balamay sideed fiidnimo markay tahay waxay tir guriga igu ima guriga adreeskiisa wax walba ay u sheegtay waxay tir halkaas adigu imaanaysaa caaw wuxuu yiri waayahay lacagtu xaday wixii dhan maskaxdiisa way ka baxeen habeenkii baa la gaaray gabadhii waxay rabtay inay isku soo xidhxidhiyo qorshihii kaartadii dhan bay sii diyaarsay dhalinyaradiina gurigay geysay ayadiina gurigay joogtaa xilligii markii la gaaray waqtigii la ballamay oo ninkii wuxuu yimid gurigii albaabkii soo garaacay saanta albaabku soo garaacay ka furtay gabadhii oo labisan oo qurux badan oo make up marsan oo aroosad oo eg aroosad yaa salaam albaabkii markay saas uga furtay waa ka ashqaraaray bade يا سلام أصيل مساند قروح بدنيد واحد رساقل قروح ذا لما يكون لمن تاي ساقل هرت ماشي سيف عن بيوم أركتدي الباب كي بيحد يقرأ قروين في الأويان أو ده قريها وين في الذا ضحك الديسك هي لو قلت لك علي قريه جدي روح لو قلني حتى أنا ما مغلين قريه جال كي قرأ لك علي الباب كي ويحد الباب كي برند ذا لك علي ويحد الباب كي برند ذا سان تو يسوي فرد قدام ماشي وصهر رساء استقبال كعاد استأكد وسان usoo galay albaabkii barandada uu uga soo galay gabadhiina albaabkii xidhay waxa fadhiyaba meeshan gabadhii ahayd Safa asiil walaalkeed habar wadaagkeed saddex qof baa meeshan fadhiya maxay yihiin dadkani asiili maxaad saan iigu gashay hadalkiiba intuuna dhameystirin 40 qof ee shaabugiyo iyo olo iyo budad bay sii diyaarsadeen waa lagu bilaabay marka waxa lagu sii heshiyo la qorshaystay ninku saas markuu usoo galay gacmihii lugaha in laga xidhxidho afkana laga xidho si uu u qaylinin kadibna la tumo de markuu casaado oo deedna saxeexo lacagtii uu qaatay inuu soo celinayo sanadad iyo waraqa la soo qortay ilaa gabadha lacagta markay siinaysay sanadadna may kala qoranin waxa may kala wareejisanin check may kala qoranin account ma ahayn lacag kaash bankigeeda ka soo bixisay faraha ninka ka saartay ninkii de afka gacmaha laga xidhxidhay xadhka la sii diyaarsaday xadhkihiiba gacmihii xadhka koronto iyo xadhka kale oo waxa la sii diyaarsaday xadhka oo laastig oo waxa la isjiidaya xadhka koronto gacmaha kaga xidhxidheen kuwii isjiidayeen waxay kaga xidhxidheen lugaha ninkii waa la figay beerka dhulka loo dhigay afartiisi adin baa la isku xidhxidhay marka afartiisi adin baa la isku xidhxidhay afkana waa laga xidhay si uu u qaylin haduu qayliyo lacalla yaan daris wax inay maqlaan baa laga baqaya inkastoo yahay guri oo waxa banaanka ka يعني جودها كقيلنا بنانك لقوا مقلين بقى نينك والله طمي gabadhii inta shaabuug soo qaadatay ciil uu hayay lacagtii laga qaatay ahayd ee lagu inta la soo bahdilay lagu nooga bax dukaanka walaal inaan ku xidhay tuugay yahay baa waxay tiri ana waxaan rabaa ninka say tahay inaan uga noolaadaan u tumo si uu qalbigaygu iigu qaboobo tum baa leeyahay marka waa lagu xidhxidhay say u tumaysay ee u tumaysay ha ooyo ha qayliyo gudaha uu ka ooyaya sanka bas say u baneeyay si uu naqasku ugu dhigin u dhiman afka dhan sharoota laga xidhay say u tumaysay bay ka qabteen bas ka dhamay wali qalbigaygu ma qaboobin isuga qalbigaygu ha qaboobay haye waxay dhaantun habar wadaageed baa markii dib u adkaysan waayay baa la ka qabto dhimeed waalinta ninka haduu ka dhaha ka warasad u tumaysay wax marka kowninka ka siinay kuma tumayso ulde iyo shaabuug iyo wax xanuun laakiin qofku uu u dhimanaynin bay ku garaacaysaa ha garaacdo suga waxay tiraahdaa wali horta ma qalbigaygu ma qaboobin wali waxana qaba igu jira marba way u nasataa sug xanaaq baa igu jira ninkii say u tumaysay gabadhii bay waxay tiri caaw bartanaynu kaga tagaynaa oo waxa la dhahay xataa uu isku kaadiyay oo marihiisii dhanaayay wixii dhan ka qoyeen oo silcayday qof inta afarta adinba laga xidhxidhay oo afartiisa adin la isku xidhay oo shafka dhulka loo saaray afartiisa adinna kor la isku xidhxidhay gabigiisba sida ciidanka loo figayo kala loo figay afkana laga xidhay bartaasaynu waxay tiri kaga tagaynaa inta armaajay tiri igu dhaxrida armaajadan inuu ku dhaxridi bartaasaynu waxay tiri kaga tagay dhaxal ku ciqaabnaado waxaynu u imanaynaa subaxii inagoo wadna waraaqihii inoo saxiix lahaa waxay dhaheen haye wiilkan marka ay habar wadaaga yihiin asiili wuxuu yiri aniga qof in la dilay iimaydaan sheegin waxaad dhahdeen nin baa la xidhxidhi waa la garaaci waraaqaha laga saxiixi bas qofkan isagoo saan u xidhxidhin caawa haddaan ka tagno hadduu dhintana maya tiri ma dhimanay maxaad xidhxidhi baa loo dhimanay qofku waxay tiri sanku ka neefsanaya afka bas uu ka xidhan yahay
dee waxay tiri marka qofka waan xidhnay uma ogtahay xidhitaan looma dhimanayo hadduu nagu dhinta ka waran waa qof weyn hadduu dhiig kar qabay ka waran hadduu dhiig kar ka waran hadduu wax si noqdo war waxa la naga jooji fulinimada dhiig kar iyo sonkortoona kuma dhacayaan ha xidhnaaday ninkii kabadh inta lagu dhaxriday baa laga tagay caruurtii dadkii dhalinyarada ahaa nin weyn baa ku jira oo asiil walaalkeed oo dhalinyarada ahayn oo ninkan la dilay la eg gabaadhidoodii bay qaateen gabadhii asiil ahaydna gaadhigiisii isaga uu ku yimid bay qaadatay waxay dhaheen miyad waalantahay asiiliyay xageed ninka gaadhigiisa u qaadanaysaa waxay dhaheen marka ninka markii la waayay ku tiri doqomayaho gaadhigiisa gurigan ku horbaakiyo marka la arko soo layna fahmi maayo gaadhigiisa waxay tiri duurka magaalada intaan ka baxo 100 kilomitir baan meel saxara cidla ku soo tuuraya ama haluma saaha ku waayo ama markuu lacagteeda ii saxiixaan dhii halkaas gaadhiga ku soo tuuray raadso laakiin waxay tiri gaadhiga halkan ma oolayo waxay tiri marka gaadhiga meel baan rabaa inaan ku soo tuuray hal ay soo raaco gaadhiga inta kaxayeen meel de cidla ah oo magaalada ka baxsan oo de kaymo dhexdoodii ku soo tuurtay way ka timid marka gaadhiga inta dimsay xidhay furiina soo qaadatay ka soo baxday hadana iyagii baa soo qaaday magaalada ku soo laabteen hameenkii sidii baa lagu seexday subaxii waxa lagu ballamay labadan wiil dhahan anaga waxaan aadaynaa meelaha loo taayooyinka xafiiska la yiraahdo ninkan kaatibul cadalka dadka dhulka iyo lacagaha u kala wareejiya waxaan soo qaadaynaa bay dhahan marka waraaqaha waxay tiri waxaad ku soo qoraysaan lacagta ninkan laga rabo waa $20,000 23,000 iyo jajab 24,000 qiyaastii waxaad ku soo qoraysaan bay tiri 40,000 oo lacaga inuu iga qaatay uu ii soo celinayo dee waxay dhahan ninku 23,000 buu ka qaatay 40,000 intee u socotaa waxay tiri dee qarashkan iyo hawshan aan galayo iyo dadkan ila shaqeynay iyo rafaadka iyo intuu bahdilay weeyaan bahdilkaygii baan u qaadanaya 20,000 ee kale 20 uu iga qaatay 20,000 ee kalena waxay tiri waa bahdilkii iyo canaantii iyo intaan fikirayo inta madaxa ay xanuujinay hayay dhahan marka waraaqay u soo qoran 40,000 ay ku qoran tahay waraaqihii wixii inta nimankii ku maqnaayeen duhurkii baynu ninkii u tagaynaaba la isku ogaa subaxii iyadii saaxiibadeed Safa waa ku iyagoo jarmaada ninkii bay u yimaadeen ninkii markay u imanayeen waxay soo qaadeen keeg weyn oo pink ah waxay soo qaadeen shopping make up waxay soo qaadeen sidoo kale kalarka timaha la marsado oo pink ah make up waxyaalo badan xamuurada rooseeda waxbay soo qaadeen ninkii bay u yimaadeen marka kabadhkii bay ka soo bixiyeen isagoo silay oo hoogay oo baay oo meesha ku dhaxkaadi oo ku dhax saxarad oo naqaskii ku dhigay oo dhiman raba bay u yimaadeen meeshii bay ka soo jiideen kursi bay ku fadhiisiyeen gacmihii wixii isku wada xirnaa inta kala furfureen isagoo laguhuna gaar u xiran yihiin gacmuhuna gaar baa ninkii waxa lagu soo fadhiisiyay kursi marka ninkii lagu fadhiisiyay timihii waxay u mariyeen kalar binki ah bay timaha u mariyeen macala sunniyaha macal shaarubihi kalar binki ay u mariyeen kalarada dadku madaxa ay marsadaan soo kalar kasta ma kalar binki ay madaxii u mariyeen wajigiina waxa loo mariyay bahal make up ah nabarii wixii ay ku dhufteen si ay uga tirtiraan kasna make up-kayba ugu marinayeenba ninka intay timihii kalarka u mariyeen binki ah oo ay rooseeta binki u mariyeen oo ay qalin sunnii wax kasta de u mariyeen baa waxa la soo qaaday miis yar keegii binkiga haba miiska la soo saaray gacmihiisu marka dib bay u xiran yihiin gacmihii waxna dadka fafuraan inuu dagaalay ka baqayaan waa labadoodii dumarka oo nimankii ma joogaan ninkii baa loo keenay marka keegii waxa la yiraahdaa waxaan kugu sawiraynaa xilligaas marka waa 2003 taleefanada neecli wax saas u baa jiray kaamirey soo qaateen marka fiidiyoyan ka duubayna bay dhaheen iyo sawiro adoo keegan markaan ku keeno shamaca ku jira afuufaya adoo keega san baan kugu sawiraynaa dhoola cadaynay adoo qosleyna iga daaya meeka ay marinine na iga dhaafa waxaan timaha kalarka ay marinaysaan waxay ka wadaan isagu ma oga waxa la intii make up ninkii loo mariyay oo timihii binki laga dhigay oo keeg binki loo keenay keegana intaas oo sawir iyo fiidiyo lagaaga duubay hadda farax qosol uu diiday ma qoslayo dhahay waxaan adigu sawiraysaan waxaan iga daayo shaabogyadii inta lagu tumay la tumay de markuu hoogayay ba ay hayay waan qosli hadda farxi markuu dhahay ba keegi loo keenay keegi ba loo keenay waxa la keegana lagu sawiraya waa inaad isfarxad gali qof faraxsan iska dhig ninkii ha farxo keegi ha gooyaan wajiga ha ka marmariyaan afka ha u galiyaan ha ku sawiraan ha ku duubaan ninkii hadana intay xirxireen bay musqusho ku dhaxrideen musqusho ku celin intay jiideen keegi wixina meesha ka qaadeen laakiin make up ninka umarsan madaxiisana kalarkii waxay ka dhigeen pink oo halkan waxay ka dhigeen pink shaarbihi xataa pink bay ka dhigeen kalar caadi u mariyeen xilli marka ay tahay barqinkii meelahaas duhurka agtiisii oo kale xilligii iyagii wiilasha ay balween bay wiilasha yimaadeen ninkii gabdhihii guriga joogo meeshan keegi iska cunayay oo cabitaan cabayo faraxsan keegi cabitaan ku muxuu yahay waxa dhintay ninkan xunkee khayaamay
إنه كأرجوسني قاب كانوا أرجوسني بأن أدبل دقينا هيا waxay ku dhahan marka ninka hadoo iska sii deynaysan markuu waraaqaha idin saxay xidhan waaya ninkii waa ku way ka warkina ninkii masqushan ku rudnay masqushan ku soo xidhnay masqushi baa la furay waa ninka make up ninkii make up marsan oo timaha kalarkooda ay yihiin pink oo shaaro bihi pink wiilashii de qosol naam maxaad ka wadaan sidan waxa saxidin jooji idinku waxaan ka wadnaa waxba idinka ma gelinay ninkani ha saxeexo heshiiska كانوا الورقة واندين صحيحي ورقة واندين صحيحي ديبا وحابة كقرن بمشان أفرتهم كن وحنا أفرتهم كن إذا كما قاعدن خائمين باتين لبعضهم كنوا بان إذا كقاتل لبعضهم كانوا يكون بان إذا صحيحية وندين سينية لبعضهم كان كلام حيتها هي كشرة ماشى كما جريت الأصيل وريا والرفات كير دب كاد إمارسة يدب كير رفات كان هذا قوم مريو ما صحيحي ولا أنا مركب كوم بعد إجسين كرتان مؤجي ولا إن أنا أفرتهم صحيحين بس waxay tiri marka ninkan waan xirxirina meeshiisa waan ku celinina wiilkii ay asiilaha barwadaagahay wuxuu dhumay saan waa dulmi ninka soo 20 ka muu qaadanin habarwadaagtay 20 kaagi kun ha saxeexo kadibna inaga siidaa ninka midda kale maxaa la yiraahdaa markaan ku sii dayna afkaaga hadaad furtid afkaaga hadaad kala furtid oo ka maqla dadkaas ay dilay lacag baa la iga saxeexday email baa la igu soo xiray fiidiyodan maan adduunka oo dhan saas uga faafinayna reerkaaga xaaskaaga dadka suuqa joogo dhan baan wada tusayna sharaf baan leeyahay sumcadayda Soomaalida dhihi jirin waxaan dhahaynaaba ninkan waa qoomulud kalarkiisa isagoo binki yahay madaxiisu oo keeg binki cunaya oo make up uu marsan yahay oo faraxsan oo qoslaya baan idin haynaa yani qof xuno sumcadiisa iyo sharaftiisa halkaas u dhamaanaysa marka waan idin bariyaa sawirada cidna ha tusina waan idin bariyaa hay lacagta saxiix ma lacagta way badan tahay ma saxiixi karo 20 kun baan idin siini intii aan idin ka qaatay intan kalena wuxuu yiri iga jara ma haye lacag ma jirta la marka meeshan wad ku xidhnaani ninkii wuu diiday inuu saxiix waraaqihii waa la xidhay masqushi baa lagu riday albaabkii masqusha lagu qufulay gurigii dhana waa la qufulay waa la iskaga tagay markii la baxay marka intaan la bixin ninkan ay asiilaha barwadaaghiin mar walba asiil walaalkeed wuxuu ku lahaa ninkan waxaan ka baqayaa inuu nagu dhinto oo dambi weyn galno ninkan gabadha lacagta uu ka qaatay u soo celiyo aan iska sii dayno asiil walaalkeed wuxuu lahaa gabadhana ku dhagan maxaa sameeyaa wuxuu arkay marka ninka asiilaha barwadaagheedaha maahir baa u bixinana maahirkii wuxuu arkay gabadhii safa ahayd oo guriga daaradiisa guriga waa guri weyn oo daarad wuxuu leeyahay dhul ah meel intay qoday god ka qoday wax ku riday ku aasaysa waxani meesha ku riday ku aasaysa wuu fahmi waay mar god weyn ma aha laakiin god bay qoday waxbay ku riday iyadoo god intay wax ku riday aasayso arkay waxa meesha ay gabadhan ku aasayso wuu fahmi waay xujirta loo meesha waxay ku aasaysaa wal iska tagay asiil waxay tir ninkaas 40 kun inuu saxaxa mooyeen halkaas unbuu iigu xidhnaani ninkii marka xilligii meesha markii lagu sii xiray intaan afka laga xirin baa wuxuu la anigu waan xanuunsanahay dawaan qaataa hadaan dhinta idinka mas'uuliyadda qaadaya asiil waxay tiri waa beenaale mana xanuunsana dawana ma qaato waa munaafiq bay tiri ninkan warkiisa aaminina ana hadda ka hor aaminay waa la iskaga tagay ninkii maahiraha gurigiisa barka ku soo laabto maalinimadii ninkii waa la garaacay waa la silciyay timaha kalar loo mariyay wax walba lagu sameeyay waa la sawiray keeg baa la cunsiiyay wuu diiday inuu waraaqii 40 kun ha saxeexo kadibna waa la xidhay musqushi baa lagu celiyay waa laga tagay Soomaha habeenkii buu ninkii maahira guriga ku soo laabtay maahir guriga furihiisa ma hayay darbiga ka soo booday meeshii safa maanta ay qodaysay buu qoday wuxuu ka soo saaray marka ninkan boorsadiisii yareed boorsada rag jaabka ku qaataan walletkiisii iyo gaariga furihiisii iyo taleefankiisii buu ka soo saaray خلاص maahir uu naxay wuxuu waxay rabaan ninka inay dilaan waa kana ninka waxyaalihii de khusuusiyaadkiisii wixii shakhsigiisa ahaayoo dhan furihii gaariga iyo boorsada wax walba ugu jiraan aqoonsigiisii wax walba traffic license kulli wuxuu yiri wuxuu rabaa inuu waxay rabaan buu yiri inay ninka dilaan way marka damana isagana meel uun ku aasaan alaabihiisii oo dhan halkan ay ku aaseen anigana wuxuu marka baxarka ii gelinayaan allah anigu miskiin baan hayay meel wax lagu dilay dambi haddaan meel wax lagu dilay dalka Jazaa'ir aad joogtid qofka wax dilaya iyo qofka la jooga ee la qorsheynaya midka la qarinaya la qaadaya la qabanaya shaqada haduu doono gacanta yuu lahaaninba laakiin qof wax dilay Soomaad la joogino maada arkayno maada ogeyno maada la qarinin meedkii ama dil aad ogeyd xataa isku dambi baatiinba hadii qofka xabsidaan lagu xukumo adigana xabsidaan dil hadii qofka lagu xukumo adigana dil inta badan in kastoon dil lagu xukumin marmar xaalado khaas waa laga yaabaa in dil lagu xukumo laakiin xabsidaanka u badan mar qofka wax dilay iyo ka caawinay marka waa isku dambi ninkii maahira wuu baqay oo wuxuu yiri dadkan xabsidaan bay ii wadaan anoo dhalinyaro ay rabaan inay mustaqbalkayga dayacaan balaaye idan aragtay gurigiiba soo aaday
guriga daaqadihiisii oo isku dayay inuu daaqad ama jabiyo ama furo daaqad buu furay uu ka soo galay musqushiiba soo aaday musqusha wuxuu arkay xiran albaabkii siduu laag ula dhacayay dumar garabka ugu dhufanay uu jabiyay albaabkii musqusha ninkii buu ka furfuray xadkii wixii ku xidhnaayo dhan wuxuu yiri waan ku badbaadinayaa ima sheegi kartid inaan anigu ku badbaadiyay gabadhaasna lacagteedii u soo celi haddaad u soo celin weydana deetan hadda kugu dhacdo shinjibaarkeed baa kugu dhici midda kale wuxuu yiri waxaan ka rabaa alaabta furihii gaarigaagna wuxuu halkaas u yaala telefoonkaagii furihii gaarigaaga wax walba adiga kula xiriirayna waa kan halkaasaad ka baxaysaa gaarigaagii baad doonanaysaa gurigaagii baad tegaysaa shib namaad arag namaad maqal haddaad ballankaa ka baxdo dee wuxuu yidhi adaa ka mas-uul waxay asiili kugu dhigtay hadda iyagoo raba inay ku dilaan anaa ku badbaadiyey alaabtanaa la aasay god baan ka soo saaray gaarigaagiina waxaa lagu soo tuuray meel magaalada 50 kilomitir u jirta wuxuu yidhi abaal baan kuu hayaa cidna waxba uma sheegayo cidna waxba ma dhahayo abaal baan kuu hayaa gurigaygii baan tegaya ninkii wuu orday saldhigga boolisku iska xaadariyay wuxuu yidhi maxaa guriga dana waaba la tumay waaba la dilay oo dee ninka laba beri baa meesha lagu haystay oo la tumayay oo yaa tumayay dad qofka u badan ee dilay asiiligu ahaa ilaan wuu xidhan yahay markasta intay ul soo qaadatay shaabuug bay dhahaysay suga ninkan ilaa qalbigaygu qaboobo aan tumayaa qiiq markay kaga kicisa qiiq ee laga qabtay lagu yiraahdo iska daabi iska daynta cabaar markay joogtay ku soo kici hadana intay u timaatay tumaysto way ka soo go'day ka argoosatay ninkii saldhigii boolisku tagay wax walba booliskii laakiin saas markuu ugu tagay de qosol madaxiisa wali waa binki iyo shaarubihiisa suneeyhiisa waxa lagu yiri waraa maxay saatahay waraa maxay ruuxan bini aadanka ee binkigi qofku waa qof weyn oo timihiisa in badan baa ciraa maadaama oday weyn oo konton dhowr sano jiray oday ma konton dhowr jir laakiin laga yaabo timihiisa qaar badan inay ciraa yihiin haddayna xataa ciraa inay madow yihiin pink color hadii madaxa la mariyo pink uu noqon colorku uu isbedel toos buu isu bedelay ama ciraahada ama madow ha ahaade nimankii de booliskii yaab iyo qosol ninkii sheekadiisii buu uga sheekay dhalinyaradii baa la soo qabtay macal maahirkii wuxuu yiri marka ninkani makhraati buu ka ahaayo imana uuna xidhxidhin imana uuna dilin laakiin dadkan uu la socday maahir wuxuu yiri marka anigu waan la socday uu dhalinyaradan ma taabanin ninkaas gabadhii marka safaahid baa yiri ninka inaad dishaan bad rabteen Soomaa waxaad alaabtiisa u aasayseed gaarigan u soo lumiseen may waxay tiri waxaan rabnay markaan xadhkaha ka furfurno inuu alaabtiisa waayo uu ku qasbanaado marka de inuu ID cusub samaysto inuu samaysto muxuu ahaye shahaadada lagu wado gaariga inuu samaysto mar kale gaarigiisi inuu waayo inuu meelaha ka soo inuu rafaadaan rabay inaan dillamaan aan rabin may waxaan inaad dishaan bad rabteen sababta ninka wada afduubateen xorriyadaad ka qaadeen jugo iyo dhaawacyaad u geysateen meeqa dambi baa lagu soo oogay lacag oona idinka qaadanin baad ka qaadan rabteen inaad dishaan baad rabteen isku day dilba lawyer buu ninkii qabsaday lawyerkii wuxuu yiri isku day dil dadkan loo haystaa oo ninka inay kaga takhalusaan kow kaga siiyaan barbeen maahir baa badbaadiyay midda kale lacag uunan ka qaadanina way ku nabayeen oo lacagtu ka qaatay wuu qartay lacagtu ka qaatay intuu kala dul saaranay xorriyada qofka in laga qaado wax 24 saac ka badan buu qofkan u afduubnaa si kas ah baa dhaawacyo iyo jugo loo gaarsiiyay jirdil buu qaba maxay baa sidan dadkan waxay u qalmaan 52 sano mid kasto iyaga kamid in lagu xukumo marka laga reebo maahir wuxuu noqday isagu makhraati oo ninkii wuxuu yiri maahir imuu taaban markii kow la dilay ninka waa la wada dilay waa la tumay waa la xirxiray markii la xirxiray laakiin qofka ugu badan ee dilay asiil uu ahaa ninkii wuxuu yiri maahir marka anigu meesha waan iska taagna makhraati baan ninka ma taaban isaguna uu taabtay muu dhihin waxa la marka 52 sano waa in lagu xukumaa aniga muwaakilkayga waa la dulmiyay YouTube baa ku dhacday internet ku dhacday video laga duubay kaamirooyin baa laga duubay maxay baa sidan inkastoo videoda marka ayna la tusinin kalarka timihiisa la bedelay maxay baa lagu qasbay xorriyadii baa laga qaaday waxa la marka 52 sano qof la afduubtay dartii qof loogu xukumaye arintaada waa la galay mudday maxkamadii socotay ninkii wuu fadeexaday wuu ceeboobay gabadheerada u shaqeynaysa inuu qaa'imay inuu lacag ka cunay wixii oo dhan baa la ogaaday xaaskaygan isku dhacsanahay wixii oo dhan uu sheeganayna been bay noqdeen mid ay xaaskiisa isku dhacsan yihiin malaha kan xaaskiisa xataa isku ma dhacsana been weeyaan waxaan oo dhan gabadheeru ku beer la xawsanay laga yaabo markii gabadhan isri lacag baa meel ii taalana inuu dhinacan kale waan xanuunsanahay iyo sheekadaas ula yimid markii hore laakiin uu lahaa xaaskaygan isku dhacsanahay gabadh yar baan rabaa aan guursado gabadh fiican oo fahmayso gabadhan yar buu rabay inuu gabadhnimadeeda siiyo ku ciyaaro ninkii waxa lagu xukumay martaa hantidii uu gabadhan yarta ka dhacay oo sideedii inuu soo celiyo gabdhihii baa ku soo haray iyo ninkii maahira isagu makhraati ahaan buu noqday waxba lagu xukumin ninkii asiil walaalkeeda waxa lagu xukumay 1 sano maadaama meel qof lagu ciqaabayo xorriyada laga qaadayo dhaawacay loogu geysanayo uu taagnaa gabdhihiina maadaama ninka dileen oo rafaadiyeen oo silciyeen
5 سنة مid kasto iyaga kamid ah lagu xukumay 5 sano baa gabdhihii lagu xukumay inay 5 sano marka dhameysteen iyo 5 sano inay dhameysteen iyo inay markay meelaha sanadii bar 2 sano xidhnaadaan la soo deyn doono inta ganax loogu bedelay iyo maadaama in qofka uu ka siinin hanti iyo waxna ayna dhicin ma garanayo laakiin ninkii xirkaha ninka ka furfuray baa horta gabdhaha ka haleeyay kaartada dhankaas ka fashilay inkastoo laga yaabo lacagta haday xataa ka qaataan oo sii daayaan inuu mar walba booliisku u tagi lahaa u dhihla dadkaas lacag dheeri iga qaatay ilaa iyaga lacag ka qaadanin buu soo dacweeyay laakiin asiili waxay tiri baa la yiri hadii xataa la igu xukumo 50 iyo 2 sano qaadigu sheegayo ninkan lawyerkiisu qalbigayga haduu uu qaboobay ninkii ikhaimay waxay tiri intuu lacagta iga qaatay i bahdilay anoo indhahayga ilin ay ka da'aysa dukaankiisa ka soo baxay indhihiisa waxaan ka keenay bay tiri ilin jidhkiisana dhiig خلاص هدي حتى لا يقول حكومة كنت سنة 5 سنة ويرتهاي قلبي جي جو قبوبي واحد وأقل ماما إن لا يحكومة مرة هذا كأرقصتي بختي أم فردها كتمي وأنت أنت الله حرحري بلغور جرع سيد تهيبي وجرع لكن صوابته إنك كلر تمها بينك وجمريان كاج وقصبان أيود هذين قصل مركو حتى لغور قصل أنتوا ديدين وقصلوا كاج لغو صوروا فواحد تمهين بلغوله ساعة كدوات markuu qaabmay oo qiiqay yiri haddaan qoslaya markaas inta jugihii wixii dhan laga tirtiray oo make up loo mariyay baa lagu yiri la gacmaha dibdib ay u xiran yihiin halkan oo kale laabtiisa agtii halkan agtaada oo kale aan keega keenayna adoo keega marka wax ku faraxsan iska dhigayo saan oo qoslaya oo marna keega afka lagu galiyo wax keega cunay iska dhigaya baa sawir laga qaadayaa lagu fiiriyo laga duubay carbal farxi waa qosli waan qoslaya waan farxaya baa laga siiday isagoo farxay duubeen وقف دنا أنت اللي دليل عليه قصب وقصل ولا عجيب هاي قبلها لكن قبلنا هذا أصيل دارتي ترنيكا والله إنك كشل لاي دوتا ويك قدر بيصورته وكشل لاي لكن قدال بحرتي كفشلته ما دام إذا ندور سنة لو حكومي لعبت دي لكن رحت إني سوء عشتي بمهمة صراحة كبر مركز أصيل أرجوس كذا أصيل صاحب بدأ صفا الكشاك يا أرجوس وميانو خطر لو قدر الحين قصل أرجوسي قصل يا أرجوس إسكو جرا كي وورين أركوية بكن هالك مركز شاكد مرسم مقالك لايك صار شاركنا سبسكرايب فيديو قشير قرية أصحابتين اللي وداقة كومنتك خفيف كلطيف كحالي الله وحي رأيقينا قيبته وسيفة على ضمن وقصة قرأ أصحابت قالي هي قيمها بدن معلمها جانل كانوا هوس وصعدا مرة كريه كر ومصعدا وإسكتاجين هي إذن هرت حقيد آدين عيدي كوري هجاجس عرور هجاجس بدكم مشغول سنتين وان إذن أوجه كل إنتين وقبضن هويين باتين قبلها نوي جران لكن هرت سوق مر إن شاء الله صانك على قبحه أفتيان قاعد دونا مر قبلها لأن يرضع هويينك أنت channel كقبضن بالأوجان دونا إن شاء الله مر بندور شو سمين دونا يا إن شاء الله مركا هديك قبل أي شرطه قبل أهود لأن يرى يهدي هو يهيد هذا هو لو مشغول سنها وان إذن عذر داري مركا شيء كذا واد رجيستان كدبنا واد إلودا الناس شارية مالها تتابطان مالها تتابطو مال كست تتابط إن شاء الله إلهي يدين بركة قعمها الله يدين بركة عمرنا الله يدين بركة ليلة القدر جنا إلهي إن الله كل مية فأمان الله مع السلامة.